wada ku soo dhawaada barnaamijkeennii wax weydiin ogaal ka sheegne qodobada wariyo caalan idinka hayno carreedag waxa ugu dooroon danaakilada oo guula ka sheegatay dagaalka Itoobiya iyo TPLF oo la go'doomiyay Mareykanka oo go'a u kala tuuraya ciidanka qoomka danaakisha ee garabka siinaya ciidamada xukuumadda Itoobiya ayaa sheegtay inay guulasha Yurub oo gaareen Kanada ay kula galeen fulinta hore ee gaaraya Soomaaliya ayaa maraya kuwaasoo rasaasalka ka soo qubaya saca hebel ciniq waxay sheegeen inay dabada kaga dhaceen oo shacabka u saareen falagada tiyo mooska soo jabisay balse imika Hargeysa iyo wuxuu la guryo noqonayo iyo horneelada danaakisha ayaa intaas ku daray soo tababaray Puntland oo ka soo degay magaalada Bohol TPLF ka horiyaan dhulka kala sugan tahay deegaanka Amaarada barnaamijkan ay hore uga hireen inay cag soo dhigaan ciidooda sidoo kale askarta Itoobiya ayaa iyaguna sheegay inay geestooda libin kala hoydeen dagaaladii shalay la isku haleelay iyadoo la raxaanshubayo in wiilashii Tigreega horboodi jiray ay hadda jarta ku xun tahay sidoo kalena uu gebi ku ciiray ciidamada Itoobiya waxay sheegeen waa iyaga yaalahooda inay TPLF ka qabsadeen dhul badan oo kolkii hore ay islihiya isu siisay iskana bahardaadsadeen dhulkaasi oo u badan deegaanka Amaarada ayay ciidanka Itoobiya sheegeen inay kala wareegeen falaagada TPLF iyagoo weliba aad u xajisay dhabaha halbowlaha ee mayl oo kolkii hore ay Tigreegu maageen sidoo kalena jarka uga luratay inay maradhaamaan dhabaha mayl ayaa ah barta isku gunuda dalalka Itoobiya iyo Djibouti waana halka ay soo maraan 90% kabarayaasha Itoobiya u caynsan iyo guud ahaan waxa Itoobiya lagu habo ee ka soo dega Djibouti waabta isgaarsiinta Itoobiya ayaa iyaduna sheegtay inay ciidanka federaalku hanteen deegaanka Burqa ee buuraha iyo qowiyad waxaa la bitinayaa inaan habeenkii xalay la kala hoyan oo baaruud socotay iyadoo dhabadhanka kale miray tiyo magaalooyin badan laga maata baxay waxaa la warinayaa in la maqlaayay dayanka madaafiicda goobta iyo duryanka rasaasta hilaacaysa ee labada col isdhaafsanayaan ciidamada dawladda oo kolkii hore ay ka jiiftay ayaa la sheegay inay hadda yuhuuntoodu kor u soo hinqatay oo ay ku dhiiradeen inay wax iska dhiciyaan askarta jiidda hore oo la leeyahay waxaa horboodaya Abiy Ahmed ayaa dirirta ka wada 3 aag oo mid yahay buuraleyda siiba dhanka maqale ku toosan oo ay maagan yihiin inay kala jaraan deegaanka Amaarada iyo Tigreega si Tigreegu waayaan baa la yiri meel ay u soo marto dhuuni kawl gasiin biyo baad biriya baaruudba waxaa la xaqiijiyay in TPLF xaalku ku xumaaday iyadoo khabar wacashadii Abiy Ahmed sameeyay ay ku noqotay nabar aan la filaynin ugu dambeyn daawaday la wadi jirayba waxaa la sheegayaa in xataa warfidiyaankii kolkii hore TPLF buunbuunin jiray ay afka juuqda gabeen oo toodhadii ay raxaashuban jireen ay gaabisay maadaama ay iska soo gudhay haddii aynu u furiyo foodleyno xaggan iyo daan waqooyi ama ay ku soo oodanto tan la hiifo ee la haaraamo ayaa waxaa la sheegayaa in goor haariban ah ama dhidar socoya ay wax u fididiimisay dowladda Kanada xaggan iyo daanbari waxay sheegeen inaanu socodkoodu fiicnayn waxay sheegeen in qajajaha iyo qabowga dayreed u xanibay waxay sheegeen inay hayaanka ku ekeeyeen meel geedigeedu dheer yahay waxay sheegeen inay u jeedaan jidkii geerida dowladda Kanada waxay sheegtay inay markay eegtay moorada ama faalka uu minka u soo baxay noqday garbaraar waxay sheegeen inay mooradu cakiran tahay waayo waa maruu cuqla u baxay waa maruu manyaluuqadi u baxday waa maruu u baxay madaxweyne waa maruu u baxay dariiq waa maruu u baxay Misubagle waa maruu u baxay Bayaad waa maruu u baxay Ximre iyo maruu u baxay Garbaraar waxay sheegtay xukuumadda Kanada inay ka niyad jabsan yihiin waxa loogu yeedhay iyo gurmadka la soo biday waxay intaa ku dartay in qayladoonku uga yimi magaalada madaxa dalka Ukraine ee Kiev oo go'aan la tuurayo iyadoo la leeyahay ka kacay gawadhida fuulay iyo galaay arrimahan fadhiga ka soo kiciyay dawladaha Kanada Talyaaniga Sweden iyo bugaanbugta beesha Yurub ayaa la sheegay inay tahay ama ay u faydan yihiinba ama u fakiiran yihiin kulay meed aasidna ay tahay inay meelun kaga aadaan dagaalka dhinaca qaydka u dhaxeeya Itoobiya iyo Suudaan militariga Khartoum ayaa sheegay inay qaboonadii saaka lagu soo ekeeyay weerar gaadma ah oo ay soo qaadeen ciidamada federaalka Itoobiya weerar hankaagan ayay Suudaan bitisay inay ka dhaceen gobolka Qadaarif gaar ahaan deegaanka Alfashqa oo kulaala seerimada Suudaan iyo Itoobiya waxay Suudaan sheegtay in lagu soo kediyay ciidankeeda oo warmooga kadibna rasaas loo nacay iyadoo qaarna la isla geliyay qaarna la qoomay oo la cawaray
Suudaan may cayimin tirada dhabta ah ee askarteeda dhaawacantay ama iilkaba loo walwaalay, hase yeeshee war ay heshay kalshinta wararka maacuudisa ee Reuters ayaa sheegtay in 6 askar lagu dilay weerarkaasi ay ciidanka gaadaha ay geysteen. waxaa la sheegay in kolkii weerarku dhacayay oo hiirtii waa beri ahayd la maqlaayay hugunka baaruuda iyo qoryaha darandooriga u dhaca. waxaa la sheegay inaan dagaalku amin sidaa u sii daba dheeraan sii soconin, maadaama oo dhanka weerarka soo ekeeyay xabashidu aanay ugu talagelin in dagaalku noqdo mid sii baaha. gobolkan dagaalku ka dhacay ee Al-Fashqa ayaa ah dhulbeereed carrasan oo ay xayiigtiisa sheegato Suudaan, balse muddo badan ay iska manaafacadsanaysay Itoobiya. waxaa la sheegay in gugan bilowgiisa ay Suudaan qabsatay inta badan dhulkan oo ay sheegtay inuu ahaa ammaanoyadeeda. dhinaca kale, dowladda Itoobiya ayaan iyadu aqoonsanayn sheegashada Suudaan ee dhulkan, iyadoo taasina aloostay in fiintu dhex mirato labada dowladood. dadka siyaasadda iyo xasaradaha hunaafadha ayaa sheegaya in haddii Suudaan iyo Itoobiya eega dagaal isugu soo baxaan la og yahay ta wax ku waayeysa oo noqonaysa Addis Ababa, maadaama oo Itoobiya ay tahay mid maanta kala taala oo la tabaalaysan dagaallo gudaheeda ka ololaya. dhinaca Puntland, xaalka gobolka bari ayaa weli jooga meel allow sahal ah, iyadoo ay birta isu afaysanayaan laba col oo isdul cawsanaya. gaaska shahaada la dirirka loo yaqaano ee BSF ayaa isku fidiyay badi magaalada Boosaaso, sida aagaga dekedda Haamaha, Baasiinka iyo weliba dhammaan iridaha ama ilinka magaalada laga galo. waxaa magaalada ku qulqulaya baa la yidhi ciidamada Puntland ee daraawiishta loo yaqaano, kuwaasoo u toogahaya inay bacaraariyaan ama doonaya inay gacan wax kaga wanaajiyaan nimanka amarkiisa diiday ee ilma Diyaano. waxaase la sheegayaa in ciidamadii daraawiishtu ay ku dhici waayeen inay la dagaalamaan nimanka tababarka huudka iyo habaarka ku qaba ee shahaado la dirirka, kuwaas oo wax taarto Maraykanku. waxay taasi keentay baa la yidhi in dar ka mid a ciidamada daraawiishtu isu xulumaan dhankaas iyo BSF, iyagoo sheegaya inayba ku biireen. wararka ayaa sheegaya in goosan ciidamo ah oo daraawiishta Puntland ah ay isu dhigeen docda wiilasha la holin waayey. waxaa la sheegayaa in taliska Africom uu maagan yahay inuu soo gacan togaaleeyo xiisadda laxooska ah ee Boosaaso ka iba furantay, taasoo maanta lu kala fidsatay maadaama reeraha Washington ay markoodii horeba carbiyeen askartan ay isa seegeen madaxweyne Siciid Cabdilaahi Deni. dhowr korneel oo ka socda taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ayaa la sheegay inay ciyoon isu dhigi doonaan dhanka magaalo xeebeedda Boosaaso si ay lugta u geliyaan moorada cakiran oo ay doonayaan inay wax ka dooriyaan si aanay u sii afdhuubyaalayn, iyadoo aan la garan karin labada dhan kan ay garta siin doonaan. waxaa la sheegay in madaxweyne Siciid Deni uu isaguna socod witiigis ah ama caalwe ah uu ku tegi doono magaalada ay cawsanayaan askarta amarkiisa diiday ee Boosaaso. Siciid Cabdilaahi Deni ayaa la filayaa inuu ceelka Boosaaso ka toodhoon doono, isaga oo digriin iyo dardaarwarin kama dambays ah siin doona wiilasha ilma Diyaano ee lafta dhuunta gashay ku noqday iskuna soo taagay. Deni ayaa sidoo kale damac kaga jira inuu la wareego gacan ku haynta magaalada Boosaaso oo farihiisa daraad ka baxday. si kastoo ay ahaataba, waxaa la sheegayaa in dhammaanba ay labada dhinac dhegta ka huwadeen waan abhin iyo maratuur kaga imanayay madaxda dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka Puntland, kuwaasoo ka duraamanaya in xaajada la hakiyo oo aan looga sii darin. ugu dambeyntii, daawade Mustafa Cagjar, madaxweynaha Soomaali Galbeed ayaa galabta markii cadceedu badbadatay ama gol casi caraabe ugu dhuftay sidan iyo ceelka Jigjiga oo uu hore uga soo aqoolay kadib markii uu hal habeen Hargeysa ku ahaa dhinac dhow. wararka jaqandharista ah ama goofaadhiga ah ee soo gaadhaya kalshinta warqabadka iyo kala miirista ee TR TV ayaa dibirka ka dilaaciyey ama sarta ka qarxiyey warar lala meermeerayay oo hadda ooda laga qaaday. wararkaasi waxay sheegayaan inuu Cagjar ka codsaday ninka la dhaho Muuse Biixi Cabdi inuu jimiric u sameeyo isla jeerkaasna la soo wado ama la sameeyo sidii looga soo dejin lahaa haabada Berbera isnuug laga soo handaabiyo sida tan iyo Daanbari. isnuugahan ayaa la rabaa in dabka kac looga dhigo reeraha Itoobiya ee ay doonayso in gaarayacuunta Tigray ay kala gooyaan hunguri cadka iyo labada biyo buuf, taasoo ay dhici karto in jidkii hore loogu soo marin jiray dhuunigu uu noqdo beerihii libaaxa looga waashay ama qoorcol joogeena. waxaa la sheegay in madaxweyne Biixi uu ku yuubay in Cagjar maxaa ii nafa ilaa ninkadan ayaa laga faa'iidaystaa, taasoo iyana keentay inuu go'aan ka gaari waayo Cagjar arrintan, sidoo kalena uu kula guryo noqdo sidan iyo taagada Addis Ababa. ugu dambeyn, daawada kililka oo la ogaa inay dambaabi jirtay Somaliland xilligii gumaysigana loo dabaka dhiibay Itoobiya ayaa la moodaa inuu kililka shanaad xaalkiisu yahay dibiboygii uu dhitiya, oo haddiiba ileen waa la yidhaahdaa ay sidii noqon weydo ama ay Itoobiya isku sakalanto.
ama ilmagaleen ku rogmo inay boqcadda iyo barada keliya ee nabta kula soo eran karaan Soomaali galbeed uu yahay ceelka Hargeysa iyo cawaankiisa isaguna madaxweyne Biixi oo kabtiisa Facebook qoraal ku soo gasangeeray bacdal qaxwihii galabta ayaa ku afgabaasiday in Jigjiga iyo Hargeysa ay yihiin sawa inta waranay waxaanu ku darnay ma ogin wax weydiin ogaal ka sheegnay